السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا ليدنا هنتنا مر وباجوكتان waxaa idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena aynu maanta kaga hadli doono waa barnaamij ka duwan barnaamijkii sportiga ayaad ugu barateen in badan inaan halkan kaga soo hadlo. haddaba barnaamijka caawa ama maanta aanu ka hadli doono waxa uu yahay waa barnaamij qoto dheer leh oo aanu dhan walba ka soo diyaariyay, laakiin asigoo dhammaystiran waxaa si toosa ugu daawan doontaan maalmaha soo socda youtube-ka aynu leeyahay ee linkigiisa aan kor kusoo qoray. fadlan hala link gareeyo, hala subscribe gareeyo youtube-kaas, sidoo kaleento page-kana hala follow gareeyo haddii aad nagu cusub tahay. haddii aadan nagu cusbeyn oo asxaaba nala tahayna fadlan sii share gareey barnaamijka like-ta iyo commentiga inaad markaasi nagala soo hadashaan noogu dadaala. aad baad wanaagsantiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha mudan aynu u godagola barnaamijka. marka barnaamijkan ka hadlayno waxa uu yahay wax soo saarka dowladda Soomaaliya ama dalka Soomaaliya. markii aan kasoo tago dowladdu waa sideedu waa mid xukunta kor ka xukunta dalka, laakiin Soomaaliya sidiisaba markii aad fiiriso wax soo saarkeeda waxa uu ku teedsan yahay wax la yiraahdo waa agriculture-ka, waa beerashada, wax beerashada, livestock iyo xoolo dhaqashada, fishing-ka iyo kalluumaysiga. waa waxyaabaha ay Soomaalidu inta badan ay markaasi wax soo saarkooda ku tiigsan yahay. haddaba sidoo kale waxa wax soo saarka Soomaaliya oo ku tiigsanaa waayihii hore wax la yiraahdo farming, saad u taqaanaan wax la yiraahdo forest ama forestry kaynta ayaa la yiraahdaa. oo markaasi kaynta micnaheeduna waxa ay tahay yacni sidee kaynta wax soo saar u yeelan kartaa Soomaaliya. yacni tusaale marka kala hadlo, tusaale waagii hore 1970gii wixii ka dambeeyay Soomaaliya 1968 iyo ilaa 70gii intuu dhaxaysay dowladdii dhexe Siyaad Barre ee Soomaaliya waqtigaas wax soo saarkeeda 4 marxaladood ayuu ku tiigsanaa. 4 marxaladoodna Soomaaliya waxay ahayd waa kaynta oo duurka ama sida u taqaanaan kaynta duurka ku taala oo la yiraahdo forestry, oo afka Ingiriiska ka hadlo waxa la yiraahdaa forestry waa kayn ama duur, yani kaynta ku taala duurka. labo fishing kalluumaysiga Soomaaliya wuxuu u ahaa kaalinta ugu muhiimsan ee Soomaaliya ayuu u ahaa wax soo saarkeeda. labo waa farming beerashada, beeraha wax soo saarka beeraha oo agriculture-ka ah. saddex oo macna midka afraad adhehe waa livestock xoolo dhaqashada, xoolaha ariga, looda, geela. Soomaalidu inta badan ba waxay ahayd wax soo saarkooda kan ugu wanaagsan, laakiin markaan ka soo tagno 1968 ilaa 1991 waxay ahayd 4 marxaladood oo Soomaaliya wax soo saarkooda kabi jiray dhaqaalaha Soomaaliya, kabi jiray miisaaniyadda dowladda Soomaaliya markaasi xukumaysay. dadka Soomaaliyana ay dhaqaalo ka soo saaran jireen oo ay heli jireen keed iyo weliba waxyaabo aad u fara badan. waayo marka aan u doortay wax soo saarka Soomaaliya maanta, mawduuca iyo sababta aan u doortay wax soo saarka Soomaaliya waxaad ku ogaan doontaan barnaamijka soo socda maalmaha soo socda oo aynu kaga hadli doono xalqadooyin fara badan wax soo saarkii Soomaaliya from 1968 ilaa iyo waaga hadda aan joogno ee 2025 hadda soo socota ama 24 hadda aynu ku guda jirno oo 2 bilood ay ka harsan tahay 25. wax soo saarkeeda marka Soomaaliya marka ka hadlo waqtiga hore wax soo saarkeeda ay ku tiigsaneed Soomaaliya, laakiin right now hadda la joogo Soomaaliya wax ma soo saarto. xaqiiqda markii ka hadlo Soomaaliya wax soo saar ma lahan xilliga hadda la joogo. waa fishing-ka, waa forestry-ga, waa farming-ka, waa agriculture-ka, livestock-ka. 4 marxaladood oo kaabaha dhaqaalaha ee Soomaaliya ahaa jirtay xilliga hadda la joogo wax ka socdo ka shaqeeyo Ilaahay abuurtaba jiro markii laga reebo waxyaabo yaryar oo nafcilisa. tusaale marka u soo dhaadhaco 3 marxaladood marka ka tago marxaladda koowaad ee farming oo beerashada Soomaaliya. adduunkan waxa lagu kala tagay ee la isku dhaafay Europe hadda waad u jeedaa dagaalka adduunka markuu ka dhacay
tusaale markuu hadda ka dhacay dagaalkii Ukraine iyo Russia Ukraine waxay soo saaraysay qamadiga adduunka uga badan caalamka idil Europe oo dhan iyo Africa iyo Asia ilaa Mareykanka ayada sii jirtay ee qamadi wadankii haddii uu marka dagaal yimaado wax soo saar ma imaanaa marka waa su'aal aad buu u yaraaday inay wax soo saarto waa keed ay lahayd oo aad u fara badan xilliga hadda lagu jiro muddo 2 sano iyo jajab dagaal ku socdo wax ma aysan tabcaaneen waxa markaas la isticmaalayay departure-keedu sameeysay bixinaysay markii uu dagaalka ka yara qaboobo qabadigii keedka ugu jiray ay bixinaysay keedka ugu jiray ee markaas bixinaysay caalamka ee supply grace dhaqaale ka soo qaadanaysay soo marka hadda Soomaaliya keed ma leedahay waa marka su'aalaas weydiino وسببت كسبتي أما كنتي الأمريكا برامج لايفا أصو قلو أن كدياري دوكومنتري حتى أمريكا أصي بندقة لايف كاسون بندقة ينو حتى دوكومنتري أكدياري أيا ربا إلا إدي سهر نوعو كا أو أكسو بندقة ربا يوتيوب كبرتا بيج يوتيوب كاينو كله هاي سيدو كله وحار ربا إلا معناها يوتيوب كان صوتيكو برامج دوكومنتري قيبيسو ردعنا إنا صديقي دورو حلقة ugu horeeyo page-ka hadda aan kala hadlayo laakiin asigoo dhameystiran waxaad ka heli doontaan barta YouTube-ka linkiga hadda kor aan ku soo qoray fadlan haddii aad ugu cusub tahay link garay oo subscribe saar YouTube-kaas si aad ula socoto xalqadaha fara badan ee aan markaas diyaariyay dokumentiga wax soo saarka dalka Soomaaliya marka adduunku waxa uu kala tagay keed waa la yiraahdo wax soo saarkaaga waa inuu leeyahay keed Soomaaliya marka wax la yiraahdo keed ma lahan maanta farming ayaa anaga sameey jirnay wax la yiraahdo beerashada oo wax soo saarka beeraha anaga sameeysan jirnay waagii hore 1968 ilaa 1991 dawladii la xisiyad baray waxay lahayd keed waxay lahayd wax soo saarka aad ugu fara badan xagga beeraha waxay lahayd wax soo saarka aad ugu fara badan xagga kaymaha oo kaymaha alwaaxda geedaha laga jaro ay waxay lahaayeen alwaax baa laga sameey jiray oo loo suuq geyn jiray Arabta Asia iyo Europe oo loo suuq geyn jiray alwaaxda laga sameeyo kaymahaas geedaha laga jaro qurux iyo jiiq sida u taqaanaan iyo waliba baxar saaf waxa ay kamid ahaayeen dawladda dhexe Soomaaliya waqtiga hore ee 1968 wax soo saarkooda ay keenta ay ku tacbanaysay oo keentaas geedahaas ay awoorayaan ay ku xanaaneynayaan waxaa laga jari jiray geedahaas alwaax ama woods sida uu taqaano English waxa lagu yiraahdaa woods laakiin alwaax baa laga sameey jiray waa la jarayay alwaax baa la farsameeyay waa la warshadeeyay alwaax bay soo saarayeen alwaaxda markaas waxa loo isticmaalayay guryaha dhismahooda waxa loo isticmaalayay in alaabaha jiifka in laga sameeyo furniture loo sameeyo yani tusaale marka ka soo tagno woods hatta xiliga lagu jiro ma awoodi karto Soomaaliya oo dhibaato far badan iyo dagaalo meel walba kaga furan yahay wax soo saarkii beeraha Soomaaliya ma leedahay xiliga hadda la joogo Soomaaliya beero wax ka soo baxa malahan xaqiiqo marka ka hadalno wax yaro qodol daruuri yaro oo hadii maanta ay dalka oo adduunka oo isxiro wax soo saarka Soomaaliya maanta yaala hal maalin ay Soomaaliya isticmaali kartaa one day ay quudan kartaa waxa hadda yaala dalka hadii la yiraahdo waxa yaalay qofku keedsanaya tusaale marka idinka siiyo hadda dagaalka ka socdo Asia oo Israel iyo Lebanon iyo Palestine iyo Syria iyo Turkiya ilaa Iraq ilaa iyo Iran hadda qortis ugu jiro Middle Asia bariga dhexe waxay sameysteen barnaamij la yiraahdo keed raashimid haddii dagaalka uu qarxo oo xaaladiisu ay aad u noqoto mid aad u dhibaataysan keed bay sameysteen raashida waddan kasta wuxuu sameystay keed raashinkiisa shidaalkiisa iyo waliba biyihiisa si aysan markaasi wax kaga go'in haddii uu dagaal ka qarxo waddanka diriskiisa ama wadamada ay wax soo saar wax ka soo kala qaadanayeen tusaale ahaan income iyo marka tusaale marka ka departure lagu sameynayo tusaale ahaan export iyo import markii la sameeyo wax la dhoofiyo wax laga soo dejiyo waddanka gudihiisa wax waddanka dibadiisa laga keeno marka si aysan u baahan wax waddanka dibadiisa laga keeno raashin ka imaado
waxay marka samaysanayaan xaaladda hadda lagu jiro wax la yiraahdo ket waa keedsanayaan raashinkooda waa keedsanayaan waxay keedsanayaan biyaha waxay keedsanayaan shidaalkooda fara badan waxay keedsanayaan raashinka qiimihiisa kala duwan waxay keedsanayaan petroleum saliid oil wax walba way keedsanayaan right now waa Middle Asia because sababtoo dagaalka haduu qarxo waqtigu qarxay lama yaqaan anytime iska qarxi kara dagaalka okay Soomaaliya marka arusoo laaban Soomaaliya dagaalka hadii uu ka qarxo Middle Asia wadanka ugu horeeya Soomaaliya ee baahi u dhimanaya waa Soomaaliya wadanka ugu horeeya adduunka ee baahi u dhimanaya Soomaaliya waay raashinka ama wax la yiraahdo qutul daruuriga Soomaaliya hadda yaalo ee raashinka yaalo wax keeda ma qabta Soomaaliya one day ku filnaanaya wal cuna hadii la yiraahdo raashinka hadii la yiraahdo ku wala xiray dagaal aan jiro wadan kasto wadan kale ka imaanay ma la wax hadii la yiraahdo one day ku ekaanaya waxa hadda Soomaaliya yaalo Soomaalida waa cuna hadii la yiraahdo gudaha joogto dalka Soomaaliya gudihiisa joogto hal maalmood ku ekaana marka maxaa xal u ah maalmaha xiga maxay cuni doontaa Soomaaliya shacabka ku nool dalka Soomaaliya maxay cuni doonaan maalmaha soo socda okay maxaa looga bixi karaa dhibaatooyinka hadda taagan marka waxa looga bixi karaa wax la yiraahdo beerasho Soomaaliya marka waxa laga dagaalamay oo reer galbeedka ee kala dagaalameen iyo dadka Carabta waxa dhaana anaga reer galbeed war xaqiiqa marka ka hadal reer galbeed lama haysto anaga reer galbeed anaga lama haysto waxaan haysto waa Carab marka runta ka hadal ila u sii gudo galo siyaasadii waxyaabaha sida ka hadla ma jecel aan xaqiiqada I don't like to talk about political laakiin xaqiiqda ka hadlo anaga galadan cadaanka oo Mareykan waaye Europe waaye kan waaye lahay ma haystaan xaqiiqada ka hadal cause of ayaga rababa Soomaaliya inay dawlad ka dhalato dhaqaale iyo qarash ku baxsho waqti ku baxsho si ay markaasi markii anaga dhaqaalaha iyo qarashka inooga bixinayaan dawladda Soomaaliya ay kala saxiixdaan heshiisyo intaasoo sar dhici karo ay dhaqaale iyo wax walba ku qaadan karaan marka wadanka laakiin hadii wadanka uu soo dawlad lahayn ma awoodi karaan marka inay agriculture-ka wax la yiraahdo mining-ka macdanta Soomaaliya ma qodo karaan cause of wax walba waxay u baahan tahay in qofku uu markuu macdan inuu qotar rabo waa inay dawlad difaacdo oo haysto European kan aad u jeeday galada cadaanka wadanka ay rabaan inay macdan ka qotaan waa inay haystaan basically dawlad ayaga marka wadankaas u fasaxdo ay difaaci karto oo wax walba ay ka qaadan karaan laakiin hadii wadanka uu burbursayo dawlad aysan aalin macdan kama qaadan karaanba inuu yimaado in gal cadaan ay yimaado European buuru ku yaala sanaag ku yaala iyo buur ku taalo gobolada dhexe Soomaaliya ku yaalo inay yimaadaan kama baxsan karaan macdan tusaalahaan waxa ku sii buurti jadda ku disho ku taalo beledweyne markuu yimaado badin gaal cadaan oo kaligiis socdo wadankii oo qarboodasan oo inta qoob qabiil isku dagaalaya inta qabiil kale isku dagaalayo iba kar wax ka qaadan karo xaqiiq marka ka laakiin wada main problem ka anaga dhahay Soomaaliya waa Emirates Saudi Arabia Qatar waa dadka anaga dhibaatada nagu hayo waa dadka anaga noo isticmaala double face waa Emirates waa Qatar waa Saudi Arabia waa wadamadaas oo la isku yiraahdo qaliijka the first enemy of Somalia waa ayaga waaya maxaa uu bixi karnaa marka tusaale marka ka siiyo Puntland problem ka haysto oo dawladda dhexe ayaga isku haystaa waxa ka dambeeya waa Imaaraadka ka dambeeyso waxa hadda ku soo kordhay in la yiraahdo Axmed Madoobe oo dawladda dhexe hadda shirki doorashadii arintii laga guda galo loogu tala galay waxa qorta u galay hadda Axmed Madoobe waxa ka dambeeya in la yiraahdo waa Imaaraadka ka dambeeyso marka Ethiopia u jeedo oo hadda tabarraq iyo qaylada naga dawooto Imaaraadka ka dambeeyso oo gacan ku siinayso barnaamijkan oo dhan the problem ka kale Somaliland ayada dhibaatada anaga naga haysato Soomaaliya Somaliland loo kala heshiis la yahay waa Imaaraadka ka dambeeyso you know the problem ka dambeey Imaaraadka iyo Carabta ugu dambeey qaliijka ugu dambeeyaan Soomaaliya inay qas noqoto because waa petroleum the main problem waa petroleum Soomaaliya haday heshiiso waxay ka wada tashanaysaa ayaheeda iyo mustaqbalkeeda waxay ku heshiinayaan inay soo saartaan wax yiraahdo petroleum warshadihii shidaalka ay shaqeeyaan ceelashii shidaalka in shidaal laga soo saaro the most resource
East Africa waxaa waaye Soomaaliya. The most resource of petroleum in the world wadanka ugu badan wax soo saarka shidaalka ugu badan waa Soomaaliya. You know the problem marka si oo shidaalkaas u soo bixin oo carabta shidaalkooda ayaga uu shaqeeyo ay waxay anaga naga dhax abuureen problem fara badan, qoomiyado fara badan, jabhado fara badan, dad fara badan oo dhibaato anaga ugu dhax abuuro, qoom kastaba inay qabiil kasta waliba waxay sameeyaan qabiilaadka inay kala taakuleeyaan. qabiil hebel dhaqaale siiyaan, hub siiyaan, qabiilka kale dhaqaale siiyaan, hub siiyaan. That is the main problem marka Soomaaliya inay saas iskugu dhaganaato maanta waxba imaan. So marka dunidan casriga xilliga hadda anaga petroleum qodanayna shidaal qodaheena alla leeyahay waxay hadda soo socdo xilli laga tagayaba shidaalka laga guurayo. Marka almost intay rabeen oo anaga nagu sameey kareen way nagu sameeyeen around 50 years ku dhawaad waa 50 sano ku dhawaad waa waliba ay ugu badan tahay 30 sano hadda ugu dambeeyay. ayaga marka dhaqaalaha iyo wax walba ay keed wax walba si sameeysanayaan wadankooda. marka waa laga guurayaa in shidaal la isticmaalo dunida. marka waxay rabaan inay gaarsiiyaan dhaqaalaha iyo qaniga aan nahay anaga hantida qaniga aan ka nahay inaa anaga faqri ah aan dhex joogno. hadhowna laga guuro waxaana haystaa xaytaraayana lagu yiraahdo adduunka waxa loo guurayaa electronic wax la yiraahdo. gawaari electronic ay imaanayso, diyaarado electronic ay imaanayaan, wax walbaba electronic ay noqonayaan. They don't need even macnaha wax la yiraahdo motorada lagu shido layrarkan waxaan electronic ay noqonayaan. So marka what we are going to do electronic wax walba haday noqdaan maxaa marka sameyn doonaa anaga shidaalkeena goormay cuneynaa maxaa qabsayna waa may. Okay ka soo dhaadhaco marka dhibaatadaasi waxaas oo marka ka soo tago. The main problem ka Soomaaliya waxaa kula talin lahaa dowladda dhexe Soomaaliya, qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed ah iyo qof kastoo Soomaaliya ee damqanayo in dhulkiisa Soomaaliyeed waliba dhulkiisa beeraha oo beerto wax soo saar fiican oo ka samaysto. dowladda dhexe Soomaaliya waa inay qarashkeeda iyo budgetkeeda ugu badan ay gelisaa beeraha Soomaaliya si loo tacban lahaa. waa in ay samaysataa keedka ugu weyn dalagga ka soo baxa dalka Soomaaliya. ma ogtahay dalagga Soomaaliya galayda, digirta iyo masagada tusaale marka ka siiyo marka laga soo tago mooska iyo cambaha iyo waxyaabaha qudaarta fruitka marka ka soo tagno qudaarta ka soo tagno qudaarta sidoodu waa balolayaan oo keed ma galaan, waa wax joogta daily loo isticmaalo laakiin waxyaabaha keedka gala ku sheega marka waa galayda, waa digirta, waa masagada, waa qamadiga, waa bariiska, waa waxyaabaha keedka ku galay oo aad isticmaali karto the next 5 years next 4 years waa isticmaali kartaa xataa xaqiiqda marka kala haddaad fuustooyin ama caagag ama aad meel aad ku soo dadka jooga tusaale ahaan waxa ay yaqaanaa waa keed. dadka reer miyiga waxay inta badan u isticmaalaan wax la yiraahdo barnaamijkan bakaar godod dheer la qoda oo qol ama guri dhan oo filaan ku fac dhirkiisa hoosna guri filaan joogeeda ama sarf joogeeda leh. waxay sameynayaan marka darbiyada wax ka saarayaan alaab ama coosas iyo yani xogaa dhiiqooyin waxyaaba inay sameeyaan ay gelinayaan si uu uusan aboor iyo waxyaaba fara badan iyo galeedaas meesha la geliyay iyo galeedii iyo wixii masagada la galshay ama qabadigii la geliyay uusan u noqonayn mid bolola oo in salooyin fara badan ku jiri kara godkaas gudihiisa. bakaartaas ay sameynayaan galeedaas, digirti, masagadi, qabadigii wixii waqtiga sanadkaas soo go'ay meesha ku shubayaan godkaas way daboolayaan. caradaas lagu level gareynaa dhulkan caadiga laga dhigaa. dhulka hadda ku socotido kaleeto caadiya balooni ku kor ciyaaraysa oo kor socotaa wax laakiin hoos waxa ku jiro raashinkii sanadkan soo baxay oo galeyda ahayd, digirta ahayd, masagada ahayd, yani ahayd qabadiga ahaa, salbukada ahayd, wixii wax soo saarka ahaa hoos bay ku save gareynayaan. So haddii sanadkan timaado abaar waxa ugu badbaadaysaa marka abaarta sanadka timaado keedkii hore ee ku yaalay aad isticmaaleeyay. keedkaaga isticmaalaysaa oo kaga baaba'aysaa in abaartaasi ay adigu ku saameyso ama ku aafayso. marka Soomaaliya dowladda dhexe Soomaaliya wasaaradda dhaqaalaha ugu badan lagu baxsho wasaaradda beeraha. wasaaradda beeraha iyo waraabka
dhaqaalaha fara badan ugu baxshaa wax mashaariic ah ay samayso ilaahay abuurto ma jirto xaqiiqda kalada wallahi wax mashaariic ah ay qabato ma laha dhowr milyan ku baxda sanadkii marka dhaqaalaha situu aadaya war cagafyo sooma gado oo dadka beeraleyda cagafyo loo soo gadaa la rabaa in la siiyo tusaale markaa ku siiyo jawhar snipers dadkii jooga yaqaano oo dadkii hore warshadii sokorta waxay leedahay qayb qasabka loogu tabco beero dhan oo qasabkaas lahayd oo dawladda dhexe ay maalgelinaysay oo qasabkii laga soo jafo laga sameeyay sokor waxay lahaayeen beero fara badan tusaale degmada Balcad oo kale waxay leedahay qayb mashruuca beeraha degmada Balcad la ninkii yaqaan mashruucaas waxaa ku yaalay waa matooro fara badan bay lahaayeen waxay lahayd wax soo saar fara badan lahayd waxay haddana lahayd sidoo kale laba mashruuc kale oo dhirtii daaq la dhaho waxay lahayd mashruuc kale oo cagafyada beeraha loogu talagalay lagu soo dejiyo dawladda Talyaaniga ee laga keeno mashruuca dawladda siyaad barnaamijka sameeyay mashruuca maadaama warshad degmada Balcad ay ku taalo warshada suufka iyo dharka waa in mashruucyo fara badan degmada lagu soo abuuraa wax soo saarkeedana beeraha lagu lahayd markaas wax soo saar fara badan lahayd mashruuca beeraha marka wuxuu markaas soo saarayay oo sameeyay beerahan ay bacrimin loo baahdo kaleeto fertilization loo baahdo waraabka hadii loo baahdo kaleeto hadii ay waxyaabaha qaarkood ay u baahdaan daawooyinka cayayaanka looga dilo beeraha sunta oo looga dilo qaraha oo kaleeto yaayadoo kaleeto markii la tabcayo xilliyada qaar waxaa jira marka cayayaan markaas cunayo cayayaankaas daawooyinka lagu buufiyo waxaa noocaas oo kaleeto ay dawladda dhexe markaas way jirtay right now marka dawladda dhexe Soomaaliya wax wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa wax ay markaas hayso oo ilaahay abuurto malaha sanadihii la soo dhaafay 10 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya dhul beereed laga beerahay ma jiraan wax la beerahay oo ilaahay abuurto malaha marka sidee loo bixi karaa marka dawladdu way financial ku bixisaa waa inay dib u haweyn ku samaysaa mashaariicdii hore ee dawladda dhexe Soomaaliya waagii siyaad bare ay jirtay ay hadda inay samaysaa wasaarad kasta oo wax soo saar leh wasaaradda kalluumaysiga waa in hadda lagu qasbaa ayaduna inay samaysaa wax soo saar fara badan waa inay ka shaqaysiisaa warshadihii dawladda Soomaaliya ka waqtigaas shaqay jiray oo kalluunka lagu farsameeyay jiray warshadan wasaaraddan beeraha waa inay samaysaa mashruucii beeraha ee Soomaaliya waa inay markaas cagafyo keentaa si beeruhu loo fasho beerta markii la fulayo qof walba wuxuu isku dayaa inuu dhaqaale ka soo saaro sababtoo waxa hadana dhibaatada ugu weyn ka yimaado xitaa maamulada degmooyinka ee goboladaasi ay beeraha ku yaalaan waa the main problem ka dawladda dhexe Soomaaliya waa inay siisaan dhaqaale maamuladaas ku filan waa inay kula xisaabtantaa wax soo saarka degmada dawladda Soomaaliya sababtoo beeraha Soomaaliya wax soo saarkooda wax ay soo saarayaan ma lahan the problem ugu weyn waa abaaraha biyo la'aanta ka jirta Soomaaliya iyo cashuuraadka u dheeriya حتى beertu la beerihina lagu qasbaa in cashuur laga qaado ama beero ama beeran waa bishii waa ka rabaa lagu leeyahay fasal kasta waa 3 bilood fasalkiiba 3 bilood kasta waa in cashuurta koonka degmada ku soo shubtaa lagu leeyahay so problemku ugu weyn marka yaa waay beerihi iyo wax ka soo saari laayay because waxa jiro beerta marka beerato sanadkan waxyaabo fara badan oo beerta waxa jiro marka qarash geliso marka qaarkood waxay ku keenaysaa faa'iidooyin fara badan oo qarashka gelisay ka faa'iido ka fiican ku maareys marka qaar waxa ku maareyso lafihii aad gelisay kaliya marka qaar waxa ku maareyso lafihii macal faa'iidada ku lumayso tusaale marka ku siiyo hadeertaan waxa jiro degmada Balcad iyo tuulooyinka hoos yimaada ilaa iyo Jawhar tuulooyinka hoos yimaado waxa jiro marka fatahaado ilaa beledweyne maanta marka fatahaadahaasi beerihii sanadkan la tacbay way jireen biyihiya marka la yaacay beerihii the main problem marka waa in loo helaa xal fatahaadahaas meel biyo loogu kala maareeyo waa in kanaalo fara badan loo jeexaa waa in kate loo sameeyaa biyahaasi dhul weyn oo Soomaalida ay dawladda Soomaaliya waa in u sameeysaa qarash ku bixisaa dhul weyn oo biyaha hadii yimaadaan markay aadi lahaayeen dadka ku soo yaaci lahaa
oo beerihii iyo bulshadii meeshay deganeedba biyihii kusoo yaaci lahayo daada qaadan uu leeyahay waa in loo sameeyaa kanaalo loo jeexaa waa in loo sameeyaa togog loo sameeyaa oo biyahaas lagu kala maareeyo haddii 3 bilood oo awaaraha ah ee maarso iyo april iyo tusaale ahaan waa february iyo march iyo april 3 bilood ugu abaara badan Soomaaliya bisha labaad sanadka bisha saddexaad iyo bisha afraad waa xilliyada ay wax soo saarkoodu aad u yar yahay roobna jirin biyana wabiga uusan lahayn xitaa xilliyadaasi ku maarmi lahayd dowladda Soomaaliya haddii ay samayso biyaha keedadkaas loo sameeyo kale wabiga lagu soo shubi lahaa wixii aad lahayn beerihii daaqsig wax walba imaan lahaa marka أتبد ولا ستنا أسحبتي ذا قيمها يقايها إنك مضن أسحبتي ذا فضلا هدي أدرو عسبتيهين فضلا فلوغرية بيجكا سيدو كالانتو يوتيوب كأي كوركوسو قري برنامجات كان كودو وبضنبا يدوكومنتريا ذا أكد دياري أيان ربا إنا مركزي هل كان إنيسو صارو يوتيوب كذا كان قصود فضلا يوتيوب كان سبسكرايب عليه صارو فضلا إعاوية أو يوتيوب كاس نوكا لكعية سيار دوكومنتيدا iyo barnaamijyaadka wax soo saarka bulshada Soomaaliyeed u leh aan wacyigelin fara badan ugu sameeyno si aan dhiirigelin fara badan idinku sameeyo page-kan waxa uu sameeyay sports laakiin markaan arkay dhibaatooyinka baahida ka jirta dalka iyo waxyaabaha inta badan aan la isla hadlin oo qof walba oo markuu social media soo galo waxyaaba shakhsiyadiisa iyo waxyaaba aan bulshada wax tar u lahayn badan ay ka wada hadlaan markaan arkay waxa dadtay biday in aanu ka hadlo wax soo saarka Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo hadii shacabka Soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan ay ayagu markaasi noqdaan kuwa wax soo saarta qof walba gacmihiisa fariiso oo kana xaqiiqada kala hadlo حتى أما باهرين وشدار كان هذا السوق ينلو مديها إنت صار بقول سنة كدوات نسقرني أكو دولة شدار كان أنا ينلو مديها أما باهرين لكن بيره هنا أنا تعبره أنا وحصل صار ويا لانه بيره بليز and بليز إنت صادق إذا كقعد صنايع سيشير كريه بيجك هلا فلو كريانا سيشير كريه براش كده يوتيوب كريه الإعلامي نسبسكرايب على صار أصحابتي القيمة هي قاية هنا قبل بدو ما ستين برنامج كمان ما صوص على يعني سو بدي دور هذول هيرادو حلقة حلقوين أي دوكيومنتري دير أي كدياري لكن حلقوين الرواية يعني سو ديجو قيب إن هذا كوو سو ديجو marka YouTube kana laga fiirsado qeybiyada soo dhigay maalin walba waxaad kala socon doontaan labada dhinacba intana waa ka socon doontaan laakiin inta barnaamijka asigoo gaaban ayaa soo dhigi doona haduu la yiraahdo linkiga oo YouTube-ka asigoo dhameystirana barnaamijyaadkaasna waxaad ka fiirsan doontaan linkiga YouTube-ka aad baad mahadsantiin asxaabtayda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت يدب وكل من دونه برنامج عكار وكلته وساحب كلمة محمد أبو كرباريو وإذا له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلبك أيانك جعلها أسحبتي ذا قيمها بضل وما هسنتي السلام عليكم